Dalku suntan xornimada qaaradda Afrika, raadraaca aadanaha marka lasoo xasuustana waa xarun ay yaalaan lafaha iyo qalfoofka bini'aadamka kuwooda ugu da'da weyne, sida qalfoofka Lucy oo da'diisa lagu sheego inuu ka badan yahay 3 milyan oo sannadood. Itoobiya waa dal dhaca bariga qaaradda Afrika, derisna la ah wadamada Soomaaliya, Eritrea, Djibouti, Kenya iyo Suudaan. Dalka tobnaad ee adduunka ugu shacabka badan qaaradda Afrikana dalka labaad ee ugu shacbiyada badan. Dalkani waxaa ku nool 139 milyan oo qof. Dabaqado xagga nolosha aad u kala fog iyo taariikhda faca weyn ee dalkani ayaan muuqaalkan si kooban ugu xuseynaa. Qarnigii koowaad ama boqolkii sano ee ugu horreeyay taariikhda maanta aan tirsanno, dalkani waxaa ka jiray boqortooyadii Aksum oo ahayd kuwii ugu horreeyay uguna awoodda badnaa qaaradda Afrika. Boqortooyadani waxay ka taajirtay ganacsigii badda cas ee ay la lahaayeen Roomaanka, Carabta, Hindida iyo Afrika inteeda kale. 400 oo sano uun markay jireen oo ku beegnayd qarnigii afraad, boqorkii hogaaminayay boqortooyada Aksum oo lagu magacaabi jiray Ezana ayaa qaatay diinta Kiristaanka. Boqortooyadiina sidaasi ayay ku noqotay mid ka mid ah kuwii dunida ugu horreeyay ee Kiristaan leeyahay. Awoodda boqortooyadana Aksum waxay gaadhay ilaa inay qabsadaan oo ka arrimiyaan qaybo ka mid ah waddanka Yemen oo ah qaaradda Aasiya iyo Bariga Dhexe oo ka baxsan qaaradda Afrika. Qarnigii 7aad, dalkani waxaa ka jiray boqortooyadii magaca dheerayd ee Abyssinia. Boqortooyadani waxay haysatay ilaa dhulka maanta Eritrea la dhaho. Waqtigani oo ahaa markii diinta Islaamku ay cusbayd, Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisuna ay gudaha magaalada Maka aadka ugu dhibaatoonayeen. Waxaa dhacay waqtigan hijradii koowaad ee muslimiinta. Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa noolaa adeerkii Abi Talib oo markaasi isaga ayaa laga cabsan jiray. Sidaasi awgeedna Nabiga laguma soo dhiiran jirin isaga. Laakiin markii uu adkeysan waayay dhibaatadii ay saxaabadiisu la kulmaysay, Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu saxaabadiisa u sheegay in ay qaaradda Afrika iyo dhulka Ardul Xabash uu joogo boqor cadaaliya oo lagu magacaabo Najaashi. Sidaasina wuxuu Nabigu ugu dardaarmay inay saxaabadu si dhuumasho ah dhinaca badda ugu fakadaan, sidaasina ay qaaradda Afrika ilaa dhulka Xabashida ay socdaan si ay nabadgelyo u helaan. Markii ay saxaabadu soo gaadheen dhulkani Xabashida, boqorkii Najaashi oo ahaa hogaamiyihii boqortooyadii Abyssinia ayaa magangelyo siiyay muslimiintii inay dhulkani ku noolaadaan, diintoodana si xor ah ugu dhaqmaan ayuu oggolaaday. Intii ay saxaabadu halkan joogeen, waxay dhiseen masaajidkii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika laga dhiso. Masjidkan waxaa loo bixiyay Masjid al-Saxaaba, waxaana laga dhisay magaalo xeebeedka Massawa oo ah dhulka Eritrea oo markaasi boqortooyadii Abyssinia ay ka talinaysay. Qarniyadii 7aad ilaa 10aad, boqortooyada Xabashidu waxay la kulantay hoos u dhaceedii ugu weynaa. Waa markii diinta Islaamku sida weyn u soo shaabaxday gudahana u soo gashay qaaradda Afrika. Ganacsatadii Carbeed ayaa markani saameyn weyn ku yeeshay min waqooyiga Afrika ilaa galbeedka Afrika. Ganacsigii iyo dhaqaalihii beriga iyo biyuhuna wuxuu u gacan galay ganacsatadani Carbeed iyo boqortooyooyinkii galbeedka Afrika. Sidaasina boqortooyadii Aksum ee Xabashidu waxay ku soo ururtay buuraleyda dalka Itoobiya. Dhaqaalihii iyo ganacsigiina badi way lumisay, waxayna ku soo ururtay boqortooyo aan tamar weyn lahayn laakiin beeraley ah. Qarnigii 12aad ilaa 13aad, markii taariikhdu ahayd, dhulkani buuraleyda Itoobiya ilaa qaybo ka mid ah Eritrea waxaa ka talinayay boqortooyadii Zagwe. Boqortooyadani ayaa awoodeeda saartay sidii dhulkan looga dhigi lahaa mid Kiristaanku saldhig u yahay, waxaana la dhisay waqtigaasi kiniisadaha ugu magaca weyn ee dalkan Itoobiya. Taariikhdu markay ahayd 1270kii, Yakunu Amlak ayaa asaasay Solomonic Dynasty. Boqortooyadani ayaa sheegtay inay ka soo farcantay kuna abtirsadaan King Solomonka kitaabka Bible-ka ku qoran. King Solomonka ay sheegayaan waa isla Nebi Suleymaan, waa wiilkii Nebi Daawud. Nebi Suleymaan kitaabka Quraanka iyo kitaabka gaalada ee Bible-ka waa lagu xusay, walow waxyaabaha qaar siyaabo kala duwan loogu kala sheegay labada diimood. Boqortooyadani waxay abtirsiintooda ku xidheen Meneligii koowaad oo ahaa boqorkii ugu horreeyay ee Itoobiya, kaasi
oo ay Etoobiyaanku aaminsan yihiin inuu ahaa wiilkii uu dhalay Nebi Suleymaan, laakiin taariikhda iyo bugaagta aan la arag caddayn sheegaysa in boqorkani uu ahaa wiilkii Nebi Suleymaan. Boqortooyadani Nebi Suleymaan ku abtirsanaysay sida ay iyagu aaminsan yihiin ayaa caan ku ah waqtigii dheeraa ay talada hayeen 700 oo sannadood oo xiriir ayay talada hayeen. Kadib sanadkii 1974 markii Haile Selassie kursigii awood military looga tuuray ayaa boqortooyadiina sidaasi ku duntay. Isla sanadkan 1974 markii Haile Selassie laga tuuray kursigii boqornimada waxaa dalkani ka dhacay taariikh adduunko dhan caanka ah. Cilmi baarayaal, saynis yahano iyo taariikh yahano baaritaano wada ayaa dhulka hoostiisa ka helay meydka iyo lafihii ama qalfoofkii Marwo Lucy. Lucy markii qalfoofteeda la baaray waxaa la ogaaday inay jirto 3 milyan iyo 200 oo sannadood. waxaanay noqotay noolaha adduunka ugu da'da weyn inta la og yahay. Qalfoofka Marwo Lucy ayaa la aaminsan yahay inuu yahay kii bini aadamka dunida jooga uu ka soo farcamay. Qalfoofkeeda qaybaha ka hadhay lafaheeda ayaa yaala masxaf loogu booqdo. Arrinkaasi ayaana saynis ahaan Ethiopia ka dhigay in loo aqoonsado dalka ama halka faraca bini aadamku uu ka soo bilowday. Intii u dhaxaysay qarnigii 17aad ilaa kii 19aad, Ethiopia waxay wajahday isku dhacyo siyaasadeed iyo kala qaybsanaan soo kala dhex gashay dadkii deganaa dhulkani. Laakiin isla qarnigii 19aad, Ethiopia waxay baal dahab ka gashay taariikhda Afrika iyo tan dunida oo dhan. 1896 gumeystihii Talyaaniga ayaa gudaha u soo galay Ethiopia, laakiin kacdoon iyo dagaal ayay kala hortageen gumeystihii ilaa dagaalkii caanka ahaa ee Adwa 1896 ciidankii Talyaaniga lagu jabiyay. Sidaasina Ethiopia waxay mataan la noqotay wadankii Liberia, waxayna labadaasi wadan noqdeen kuwa kaliya ee dhulkooda u diiday gumeystihii reer Yurub ee qarnigii 19aad qaaradda Afrika kala qaybsaday. Sidaasina Ethiopia waxay astaan u noqotay xornimada qaaradda Afrika. ciidankii Talyaaniga wuxuu gudaha si toos ah ugu soo galay caasimadda Addis Ababa 1936 waxayna joogeen ilaa 1941. muddadaasi 5 sano ah Ethiopiaanku waxay ciidanka Talyaaniga kula jireen guerrilla war ama dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa. marna isumay dhiibin Talyaaniga, heshiisna lama aysan qaadan. Markii dambena iyaga iyo ciidamadii Ingiriiska oo ahaa gaashaanbuurtii ay Talyaaniga iskaga soo horjeedeen dagaalkii labaad ayaa ka adkaaday Talyaanigii. Sidaasina ciidamada Talyaaniga dalkan Ethiopia dibadda ayaa looga saaray iyaga oo la jabiyay. muddada 5 sano ee Talyaanigu joogeen dalkani, taariikhyahanada caalamiga iyo kuwa dalkani waxay isla qirsan yihiin inay ahayd dagaal military oo u dhaxeeyay ciidamadii Talyaaniga iyo iska caabintii Ethiopiaanka. sababtaasi ayayna qaybta xorriyadda qaaradda Afrika baalka dahabka ahi dalkani uga galay. taariikhdu markay ku beegnayd 1974 group military ah oo ka kooban 120 qof ayaa si hoose ugu heshiiyey inay boqortooyadii Solomoniga ahayd afgambiyaan. waxay xidhxidheen dhammaan wasiiradii Haile Selassie. intaasi kadibna kursigii boqortooyada ayay ka tuureen Haile Selassie. hoggaankiina iyaga ayaa sidaasi kula wareegay. kooxdan oo ahaa saraakiil dhalinyaro ah ayaa shacabka u ballan qaaday inay dhibaatooyinkii boqortooyadu ku haysay meesha ka saari doonaan, laakiin waxay sababeen dhibaatooyinkii hore kuwa ka badan. waxaana hogaamiyaha ugu sarreeya noqday markani Mengistu Haile Mariam. intii u dhaxaysay 1972 ilaa 1991 dalkani wuxuu wajahay dagaaladii iyo masiibooyin dhinaca colaadaha iyo abaaraha ahaa. dagaaladii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay waqtigani waxaa ku naf waayay 400,000 oo qof. abaaraha iyo caqabadihii dagaaladu sababeenna waxaa ku naf waayay dad 1 milyan gaadhaya. marka la isku darana 1 milyan iyo badh qof ayaa muddadaasi 1972 ilaa 1991 colaadii iyo macaluushii halkaasi ka dhacday awgeed u geeriyooday. kooxdii dalkani hogaaminaysay oo ugu sarreeyay Mengistu Haile Mariam ayaa 1991 u burburay arrimo badan oo iskaashaday oo ay ka mid ahaayeen dhaqaale yarida ka dhacday dalkani iyo xulafadoodii Soviet Unionka ama midoogii Sovieti oo markaasi iyaguna burburay.
1993 waxaa Itoobiya ka hoos baxay Eritrea oo noqotay waddan gooni u taagan. 30 sano oo ay halgamayeen xorriyadoodii ayay heleen, waxayna ka baxeen dalka Itoobiya oo ay ku hoos jireen xukun ahaan. Kadib burburkii ku yimi hogaankii Mengistu Haile Mariam 1991, Itoobiya waxay ka leexatay wadadii hore ee awoodda militariga iyo kala talisnimada ku salaysnayd, waxayna qaadatay nidaamka federaalka oo ku salaysan dhammaan qowmiyadaha kala duwan ee dalkani ku nool. Taasi ayaa wax badan ka bedeshay dhibaatooyinkii siyaasadeed iyo awooddii halka meel ku koobnayd ee dalkani hore ugu soo jirtay. Waxaana nidaamkaasi lagu soo gaadhay ilaa 2018 oo uu hogaanka dalkani noqday Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaaraha talada waddankani waqtigani haya. Haddii aad ilaa halkan la soo gaadhay, fadlan muuqaalka like taa sidoo kalena channelkeena soo raac si aad u hesho muuqaaladeena dambe. Mahadsanid.